caawa halkan baa isugu nimaanay waxyaabaha halkan isugu nimaanana waxay tahay cabasho ka dhan ah guddiga doorashada galmudug waxaan nahay wariyaasha ka howlgala deegaanada galmudug oo intooda badan ku sugan magaalada Dhuusamareeb aniga magacaygu waa Maxamed Cabdiweli Tooxow waxaan ka tirsanahay shaqaalaha TV-ga Universal dhowr jeer waa la fadhiisanay guddiga doorashada cabashada aan qabnaana waxay tahay wararka ka jira deegaanka ayaa inta badan anagu waxaanu nahay dadka aanan helin sababta aan ku helinna waxa ay tahay guddiga dhowr jeer waxaan u sheegnay in xarumaha anagu aan ka howlgalno ee halkan aan uga warano in ay ina soo weydiiyaan 24 saac wararka ka jira deegaanka guddiguna waxay noo sheegeen in ay arintaasi waxa way wariyaasha ay ka raali gelinayaan waxaan cabasho ka nahay shaqsi xafiiska ra'iisul wasaaraha ka tirsan oo kaamirmaan u ah oo loogu talagalay inuu wax sawiro ayaa shaqadii beledka ka jirta gaar ahaan doorashada galmudug wuxuu isku dayaa inuu wax walba inta soo duubo oo meelaha aan ka howlgalno oo u diro ninkaasna waxa lagu magacaabaa Beesani waa shaqo aan loogu talagalin buu hayaa waxaan guddiga dhowr jeer aan kala hadlay arintaas in naga la daayo laakiin waa naga la day waay waxaan xarumaha aan ka howlgalnay aan ku wargelinay in arintaas ay taagan tahay taas ayaa inagu kaliftay caawa in aan halkan inta isugu nimaano anagoo ka kala nimaanay Guraceel Caabudwaaq Gaalkacyo Hobyo Cadaado iyo waliba meelo kale oo ka tirsan deegaanada galmudug waxaana u nimaanana waxay ahayd in aan ka hadalno doorkii warbaahintu ay ku lahayd in ay tabiso doorashada galmudug oo ka maqan halkan guddiga hore ayaan u sheegnay maanta waxa la doortay gudoomiye ku meel gaar ah oo golaha baarlamaanka cusub ee galmudug iska doorteen guddi doorasho waa la sameeyay waxa uu isku dayayaa shakhsigaasi in uu wax walba oo halkaas ka socdo inuu warbaahinta madaxa banaan uu ka hor istaago waxaan codsi u nahay aan madaxda halkan ku sugan aan u sheegaynaa cod dheer iyo cod gaaban baan ugu sheegnay in arintaasi wax laga qabto shaqada halkan ka socotay caawa in aan iska warsano oo aan iska xog wareysanahay isugu nimid waxay soo bilaabatay muddo 7 bilood 8 bilood ka hor oo halkan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha guduhu ay toddobaad gudihii wada yimaadeen hawsha hawl dhib badan oo aad u adag ay ahayd shirkii dib u heshiisiinta lagu soo bilaabay kii maaragtay waxa ku xigay arrimaha doorashooyinka oo guddiga farsamada loo saaray haatan waxa loo gudbay in baarlamaankii la soo kamilay doorashadiina la gudo galo inta oo idil waxa haysatay wariyaashii deegaankan ka shaqeynayay reer galmudug oo kuwa reer Dhuusamareeb loo yimid ay ugu badan yihiin culays baaxad leh oo uga imaanayay team ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha oo halkan yimid 8 bilood ka hor markii ay yimaadeenba waxa ay maaragtay aad u maquuniyeen oo maaragtay u caburiyeen wariyaasha halkan ka shaqeynayay waxa la isugu kaana daray caburin caga jugleyn iyo xaqiraad joogto ah oo wariyaasha deegaanka lagu sameeyay waxa dhacday in wariyaashu ayagoo adeegii fulinayo oo kaamirooyinkoodii iyo shaqadoodii wata marka ay tagaan xaruntii shirku ka socday irdaha laga soo celiyo inta gacmo laga soo hadlo ayadoo shakhsiyaadkii ra'iisul wasaaraha ka socday xafiiskiisa ay gacmadii ka soo hadlayeen wariyaasha laga soo celiyo ayagoo shaqadii iyo waajibkii ay u socdeen bulshada u wada jeedo halkan waxaan rabnaa marka inaan ka cadeyno kulankeenan iyo hadalkeenan waxa ka horeeyay kulan aan la qaadanay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo wariyaasha dhamu ay u tageen waxa ku xigay kulan aan la yeelanay guddiga dib u heshiisiinta iyo kii doorashada ee waqtigiisu hadda u dhamaaday farsamada saddexda arin maaragtay saddexda qolob waxaan kala hadlaynay dhibaatadan haysatay oo ahayd arin baaxad leh arinta caawa markaan ugu soo beegnaa waxay tahay in dhibaatooyinkiina loo geystay iyo dhibkii nagu dhacayay oo ka imaanayay tiimka xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ugu horeeyo Beesani oo kamid ah kaamiramanada xafiiska ra'iisul wasaaraha ama sawir qaade ka ah xafiiska ra'iisul wasaaraha oo deegaankan la keenay 8 bilood muddo ku dhow maaragtay halkan joogay inta uu joogayna hab aan qurux badnayn oo aad u foolxun ula dhaqmayo wariyaasha iyadoo aad u qabtay in raali looga yahay oo maaragtay aan u fahmeynay in wax raali laga yahay sababtoo ah in wariyo Dhuusamareeb joogo oo kaamiradaha xafiiska ra'iisul wasaaraha tiimka ka socda ay ku shaqeynayaan kaamirooyin ka qaalisan ama u dhigma qaabka shaqada iyo xirfadlayaal la mid oo deegaankan ka shaqeynaya ay joogaan in maaragtay loo jujuubo oo maaragtay loo diido inay shaqadii gutaan waxaan aragnaa ceeb weyn waxaan codsanaynaa anagoo maaragtay u gudbinayna cabashadeena ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo shakhsigaas xafiiskiisa oo ka socdo iyo guddiga doorashooyinka shaqadan hadda horeeyay qabtay iyo kan hadda la doortay maaragtay shaqada bilaabi doonaba in arintan cabashada aan ka nahay wax laga qabto
oo maaragtay guddigu uu jawaab ka bixiyo guddiga doorashooyinka maanta la doortana waxaan ka codsanaynaa in dhibaatadii nagu socotay aysan raalli ka noqon oo aysan maaragtay sii eegan dhibka wariyaasha lagu hayo waxaan codsanaynaa in arrinteena jawaab degdeg ah laga bixiyo waa mahadsantihiin ujeedka halkan wariyaashu isugu yimaadeenna waxay ahayd inay ka hadlaan dhibaatooyin ka soo wajahay dhinaca shaqooyinkooda shantii bilood ee ugu dambeysay halkan waxaa ka socday shaqooyin ay xaq u lahaayeen inay tabiyaan wariyaasha dhuusamareeb jooga laakiin waxaa culaysyo ka soo wajahayaan xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiisyo kale iyo gudiyadii shaqadan lahaa oo ugu horeeya guddigii dib u heshiisiinta oo ku fashilmay inay warbaahinta arrintooda xaliyaan waxaa sidoo kale arrintii guddiga doorashada inkastoo aan is aragnay oo weji wanaagsan aan ku kala tagnay haddana waxaa arrintan gacanta ku haya mid ka mida kaamirmaanada xafiiska ra'iisul wasaaraha oo aan shaqadan aysan ahayn midii isagu iska lahaa waxaan ka xumahay wariyaasha intaas la eg inay hal qof oo iyaga shaqada ay qabtaan shaqo ka yar qabta oo igaar kaamirmaana ah inay ka cawdaan taasaa waxay tahay wax weyn oo dhibaato ku ah sumcadda wariyaashan waxaanan ka xumahay arrintaas waxaanan rabnaa inagu in arrintaasi degdega looga soo jawaabo shaqadan waxaa iskale wariyaasha ujeedka ugu weyn halkan isugu nimidna waxay ahayd inaan isku sheegno inaan shaqo joojin marka koowaad samaynay marka labaadna aan dirayno baaq waxaa furan baaq waxaan baaq u diraynaa xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiisyada kale ee qusayso waxaan sidoo kale la hadlaynaa guddiga hadda shaqada la wareegay guddiga doorashadu iyo guddiyada soo socda shaqooyinkan sii gali doona inay ka baaqsadaan waxyaabihii ay ku fashilmeen guddiyada ka horeysay waa mahadsantihiin waxaan dalbanaynaa arrimaha dhibaatooyinka saxafiyiinta xamar haystay inaan loo soo wareejin saxafiyiinta galmudug waxaan soo jeedinaynaa in kaamiramaan xafiis siyaasadeed ama xafiis hogaamiye ka tirsan uusan qaadan doorkii ay lahaayeen saxafiyiinta deegaanadan galmudug jooga ka howlgala dhowr bilood ayay deegaanada hobyo iyo gaalkacyo iyo cabud waaqi iyo cadaado wartabiyaashii ay ka yimaadeen oo halkan ay joogeen waxayna intaas ka shaqaynayeen inay riboodadii iyo warbixinadii gudbiyaan marka haddii caqabado xayndaaban ay joogtaa u dhacayaan waa loo dulqaadan waaye caawana shaqo joojintaas la sameeyay ra'iisul wasaarahan toos la hadlaynaa dadka kale ay qusaysaan la hadlaynaa gudiyadii hore aan loola fariistay oo arrintaas xallin waayo ku guul daraystaan la hadlaynaa ragga cusub iyo gabdhaha cusub ee baarlamaanka ah soo baxay warbixinadoodii dhaarintoodii deegaanadii ay ka soo jeedeen dhaartoodii inaan u gudbino la hor istaago caqabada lagu noqday haddana doorashooyinka ay sameynayaan aan ognahay in wax caqabado jira ay ku xayndaaban yihiin arrimahaas oo dhan aan u gudbinaynaa daneeyaasha oo dhan aan u sheegaynaa doorkeennii hore oo aan gudanay waxaan ku gudanaynay isxilqaannimo iyo wax la yidhaha rakarooni haddana waxaan rajaynaynaa in arrintan wax ka qabasho degdega loo sameeyo qaar mahadsantiin waxa way waxa nasiib darro ah maantayto ayadoo dalku uu yahay dal federaal ah in caburin saxaafadeed weli ay ka jirto qaybo ka mid ah dalka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba cambaaraynaynaa dadka ku shuqul leh hawshaas oo weliba uu ugu horeeyo ama ay ku jiraan qaybo ka mid ah ama xubno ka mid ah xafiiska ra'iisul wasaaraha oo shaqadan gacanta ku haya waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan fariin u diraynaa guddiga cusub ee haatan shaqada la wareegay oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ah oo shaqadan wadi doona ilaa heer madaxweyne waxaana leenahay wadadii guddigii hore maray inayna marin waxa weeye sida wariyaashii hore ay sheegeen waxa gabi ahaanba wariyaasha meeshan ka howlgala ay saacadan laga bilaabo ay joojiyeen shaqadii ay ka hayeen magaalada dhuusamareeb qaasatan hawlaha doorashada ee ka socota meeshaani waxaana rajaynaynaa in arrinta ama hadalka iyagu uu gaaro cid allaaliya ciddii uu quseeyo